waxyaabaha dhibka weyn ku haya beeraleyda Soomaaliyeed ee basasha soo saara waxaa ka mid ah sidii u soo saari lahaayeen seedlings ama transplants oo tayo leh oo ay beertooda ay ku isticmaali karaan si u buuxiyaan beertii oo aysan basas banaan u yeelan sidaas darteedna faa'iido badan ay u soo saarto. laakiin sidii seedlings loo soo saari lahaa ama transplants loo soo saari lahaa waxaa loo baahan yahay in si fiican loo maamulo ciidii, nafaqadii iyo weedskina lala dagaalamo iyo maamulo kale. marka video waxaan uga hadlaynaa sidii transplants loo soo saari lahaa ka bacdina looga faa'iideysan lahaa dhulka Ilaahay uu na siiyay oo inta seedling fiican la soo saaro dhul badan basashii lagu abuuri karo. fadlan ka faa'iideyso. السلام عليكم كسر هذا الفيديو كل اللي دارس فهم صومالي ومترقل إني كيف يدستان ولا الله صوماليات ما يعيقوا على الباشي فضلا هدي أكو عصوب تاع كنالك سبسكرايب له بالكنا تابو سيسقودا في فيديو خصوصا صوري إنه فضلا لو ذاك وجود بي ولا الله كلا صوماليات سيبقى في يدستان وأي تطبضن أو صومالي وجرته وما سنتي sida sheegnay video waxaan uga hadlaynaa soo saaridda transplantska ee basasha. Videoskan video ka horeeyay oo basasha ku saabsanaa waxaan uga hadlaynay sida abuurka basasha loo soo saaro iyo haddii aadan awoodin inaad soo saarato si aad wadamada kale oo dibadda ah aad uga soo gadato weliba sida dadka ku habboon Soomaaliya oo kale u soo gada lahayd ayaan ka hadalnay. laakiin midaan waxaan uga hadlaynaa qaabkii aad adiga transplantska laftirkaaga aad u soo saari lahayd markii aad seedka soo iibsato. dabcan waa fahamsan tahay transplantsku waxa uu yahay. Transplantsku waa adigoo geedihii ama abuurkii abuuray ka bacdina markii uu weynaaday qaaday oo meel uu si toos uga baxayo aad geyso. marka geedaha qaar way ku kala fiican yihiin waana loo isticmaalaa qaarna looma isticmaalo sida dabcan galley oo kale iyo looma isticmaalo laakiin si fiican oo habaysan ayay waxa u soo baxaan geedaha sida yaanyada iyo lettuce-ka ama ansalaatada iyo basasha kuwaas oo kale si fiican ayay u soo baxaan. reeshi ahaan haddii la fiiriyana meeshii halkii meel oo aad naasiriga oo aad ku abuurto basasha oo kale waxay ku filan tahay ilaa 20 iyadoo kale ah ayay ku filan tahay. marka taas waxay ku tusaysaa meel yar inaad dhul weyn aad ku abuuri karto. basasha marka qaabab kala duwan oo loo koriyo ayaa jira. 3 qaab ayaa loo koriyaa oo loo abuuraa markii aad rabtid beertaada inaad ku abuurtid. waxa la yiraahdo sets iyo transplantska oo midkan video uga hadlayno iyo seedkii iyo abuurkii inaad abuurto. dabcan ayagoo dhan seedkii ka soo bilowdaan laakiin 3 qaab oo kala duwan ayaa loo abuuraa basasha markii la abuurayo. marka nursery ayaa lagu koriyaa transplantska ka bacdi ayaa marka waxa la geeyaa beerta weyn. laakiin setska inta badan waxa laga isticmaalaa wadamada qabow ama wadamada maaragtay lagu iibiyo oo inta beeraleydu seedkii abuuraan inta uu soo weynaan wax yar markuu soo baxo ka bacdi ayay soo bixiyaan meel ayaa la dhigaa. sidaas darteed ayaa waxa marka laga iibiyaa beeraleyda yararka ah ama dadka xaafadooda ku kor abuuranaya oo gardenka yarka leh ayaa laga iibiyaa ayaga ka bacdi abuura. sidaas ayay ku soo baxaysaa. marka wuxuu kuu sahlayaa si dhaqso ah in maaragtay xilliga spring oo kale camal intay abuuraan uu si dhaqso ah u soo baxo. marka kan kama hadlayno badanaa maadaama aan Soomaaliya aan cidna ku abuurin oo la isticmaalin hadda videogan ma uga hadlayno. laakiin faa'iidooyin badan ayuu leeyahay oo xilli hore oo dhaqso ah ayuu ku soo saarayaa maadaama uu already asagoo la soo abuuray oo diyaarsan lagu keenayo. laakiin waxyaabo badan oo asna ku liitana waa jira qiimo ahaanna waa qaali inta badan. laakiin dabcan sida og tahay basasha mirteeda toosna waa loo abuuri karaa inta xataa machine la isticmaalo waa la abuuraa oo beerta weyn waa lagu abuuraa. laakiin wuxuu u baahan yahay shaqo badan iyo hawl badan iyo maaragtay qarash badan ayaa laga yaabaa inay kaaga baxaan maadaama mirihii qaali ay kugu noqon karaan. mararka qaar waxaa laga yaabaa in seed badan uu kaaga khasaaro biyo badan kaaga baxay hawl badan ayaa kaaga baxaysa. marka sidaas darteed inta badan taas lama sameeyo. laakiin dabcan waa loo abuuraa meelo badan ayaa loo abuuraa. marka sidaas darteed haddii Soomaaliya aad joogtid oo kale chanceska ugu fiican ama qaabka ugu fiican oo aad ku soo aruursaaraysid transplantska oo basasha waa inaad ama greenhouse ku abuurtaa ama waa inaad ku abuurtaa oo banaanka oo seedlingka sidaas ku soo saartaa ka bacdina aad beerta aad ku abuurtaa. faa'iidooyinka ku jira kulli qaarna hore ayaan usoo sheegnay laakiin waxaa ka mid ah inaad xilli fiican ay ku soo baxayaan abuurkii si siman inay u soo wada baxayaan oo maaragtay meel qaarna ay abuurkii ka maqnayn meelna ay ku jiraan maadaama aad geedo habaysan oo seedling aad abuurtay si siman ayay u soo wada baxayaan. dabcan sida aan sheegnana
seed badan ayaa kugu badbaadiya oo qaali ah. marar badanna waxaad ka helaysaa faa'iidada ah in cuduradii iyo cayaanaadkii inay kaa yarayso. laakiin ayaduna waxay ku xun tahay oo ku liidataa waa qarash badan oo greenhouseka ama bac ha ahaado ama ha ahaado shade net. markii aad dhisaysid qarash ayaa kaaga baxaya, qarashkiisa ayaa badan. qalab waxa u baahan tahay oo specialist ah oo loogu talagalo mararka qaar, weliba haddii aad rabto inaad greenhouse ku abuurtid oo kale, iyo shaqaalo badan iyo waqti badanna wuu kaaga baxaya. videogan aan hore u samaynana waxaan uga hadlaynaa marka ciidda iyo qaababka kala duwan ee loo isticmaalo iyo qalabka kala duwan ee loo isticmaalo ee lagu abuuro greenhouseyada seedlingka lagu korinayo ayaan uga hadalnay kuwaas. marka waxyaabo badan ayaa la isticmaalaa, waxa la yirahdo peat ayaa la isticmaalaa, perlite ayaa la isticmaalaa, vermiculite iyo ciid iyo cocoa, waxyaabahaas kala duwan ayaa la isticmaalaa iyo qaabab kala duwan ayaa lagu abuuraa oo lagu shubaa caagadahan. ee ciidda tooska ah laguma shubo maxaa yeelay way jabinayaan. marka videogaas ayaan uga hadalnay, haddii aad rabtid waa fiirsan kartaa oo maragta halkan ku celimayno. marka sida aan niri transparentka greenhouseka ayaa lagu kori karaa labadiisa noocba, noocyadiisa kala duwan ayaa lagu abuuri karaa. weliba Soomaaliya oo kale shade netka ayaa ku fiican. markaas waxaa helaysaa in maaragtay heerkulka uu mid xadidan oo habaysan oo isku aadan inuu yahay oo isbabedelayn, maadaama maaragtay shade netkii uu kulaylkii saa'idkaa kaa celinayo. biyahaagii si fiican ayaa u maamuli kartaa, ama maaragtay caagad kor ku xir ah, ama biyaha kor ka sii qaabka u maamushidba biyihii si sahal ayaa u maamuli kartaa. sidoo kale maaragtay shade net haddaa isticmaalaysid aaryadu si fiican ayay ugu soconaysaa. caagadaha la isticmaalo oo kale markaa isticmaalaysid dabcan kama baqaysid badanaa inay kugu dhacaan weedska iyo kale insectska oo kale, maadaama shabaqii uu kaa celinayo. cudurrada qaarna waa ka badbaadaysaa maadaama geedihii haddii aad ku korinaysa caagadahoo kale aad kor u qaaday oo meel kore ay ku baxayaan oo ciidda ay ka fog yihiin, cudurro badan ayaa iyadana kaa badbaadaya. marka faa'iidooyin fara badan ayaa ku jirta taas in la isticmaalo oo greenhouseyada inta la dhisto loo isticmaalo in lagu koriyo transparentka. faa'iido fara badan ayaa ku jirta taas. dabcan noocan oo kale wadamada qabow ayuu ku fiican yahay qarashkiisa iyo hawshiisa, kanoo kale oo laana u baahnayn aan Soomaaliya ka dhisano. marka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay. sida aan sheegnay waxaan loo yaqaana plugska oo maaragtay oo aan ciidda ku jirin oo lagu korinayo. waxyaabahaas waxaa ka mid ah in xididkii ay ku dhagayaan oo aysan sida ciidda oo kale ka daadanayn markii aad ciidda kasoo bixiso. sidoo kale waxay kuu sahlaysaa inaad rarto oo intaad meel ku koriso aad xitaa qof kaloo beer kala degan aad ka iibiso abuurkii oo uu qaato kabacdina uu xag ku abuurto oo raritaankeedu wuu sahlan yahay. waxa la yiraahdo marka waxaa jira transplant shock oo markii aad soo bixisid abuurka oo meel ku dugtid oo meel kale rabtid inaad ku dugtid, shockgaas ayaa ku dhacaya oo mararka qaar geedkii saameyn weyn iyo dhibaato weyn ayay u keenaysaa. laakiin markii aad waxaan plugska la yiraahdo aad ku abuurtid si sawirka aad ka aragtid oo kale, waxay noqonaysaa markaas in shockgaas uu ku dhaco uu aad u yaraado. inuusan ku dhicin shockgaas ayay u badan tahay. marka faa'iidooyinkaas fara badan ayaa ku jira haddii aad si fiican u maamushid dabcan oo aad biyihii siisid oo xilli ku habboon aad abuurtid. dabcan kan hadda videoga ka aragtid waa ansalaato oo transplant lagu samaynayo. marka balaaga ama duleelka oo caagadahaas abuurka lagu abuuro way kala duwan yihiin, qaar way yar yihiin, qaar way weyn yihiin. taasna waxay ku xiran tahay abuurka lagu abuuri rabo, ma basala mise waa yaanyo mise waa nooc kale. size kala duwan ayay leeyihiin. marka dabcan maadaama aad qarashku galayo oo qalab fiican aad isticmaalaysid, abuurka aad soo iibsanaysid waa abuur aad hubto oo iska soo baartay oo fiican inuu yahay ayaa muhiim ah. marka meesha barbarooniga iyo yaanyada oo kale hal godkiiba la geliyo hal mir, basasha oo kale waxaa la geliyaa 3 xabo ayaa la geliyaa halkii meel maadaama ayaka ay ka yaryar yihiin. laakiin dabcan waxaa lagaa rabaa in aadan aad u buuxin oo aad u ogolaato boos inuu helo seedkii oo si saa'id aadan u buuxin. marka qalabkan oo kale marka isticmaalaysidna seedka ama abuurka kaa qasaaraya aad ayuu u yaryahay. maamulka biyaha iyo soo bixitaanka transplantska marka badanaa waxay qaadataa 7 ilaa 8 beri ayay qaadataa inay abuurkii ay soo baxaan. markii lagu abuurayo caagadahan oo kale heerkulka ku habboon inta badan oo si fiican ugu soo baxaan waa 20 ilaa 24 celsius ayaa ku habboon. dabcan waxay ku xiran tahay basasha nooca ay tahay, qaar ayaa laga yaabaa inay ka yihiin qaarna ay ka badan yihiin. laakiin markii aad abuurtid oo kale waxaa ku qasban tahay inaad maaragtay biyaha si fiican u siisid oo biyo fiican aad siisid si aysan biyo la'aan ugu dhicin oo abuurkii uusan meeshii inta la geliyo uu ku halaabo. marka haddii aad rabtid marka si dhaqso ah inuu abuurku ugu soo baxo markii aad caagadahan oo kale aad ku abuurtid, waxaa la sameeyaa maro ayaa la saaraa. maradaas marka waxay kaa caawinaysaa inay biyihii ka baxaya ay yaraadaan
oo meeshii ay huur noqoto kabacdina si dhaqso ah ayay kusoo baxayaan dalagaagii oo weliba siman basashii aa ku abuurtay meesha. Marka maradaasoo kale noocay rabtaa ahaato ayaa la saaraa. ileen markaanoo kale oo mirta ay hoos ku jirto uma baahna qoraxda, intooda badan qoraxdii uma baahna. marka sidaas darteed waxaa la saaraa maro ayaa la saaraa noocay rabtaa ahaatee. waxaa kaloo la samayn karaa oo badana dadka qaarna ay sameeyaan in aad abuurkii isdul saarto, caagadihii aad ku abuurtay oo abuurka aa gelisay inaad iyagoo dhan isdul saarto kabacdina aad maro dusha kasii wada saarto oo iyakii ay isku noqdaan meel huur ah. xilligii soo bixitaanka marka uu dhow yahay ayaa marka la kala qaadaa. marka dabcan sida aan sheegnay biyuhu aad ayay u muhiim yihiin, laakiin waxaa la rabaa biyaha inaadan ka badin. biyihii haddaad ka badiso waxaa dhacaysa marka in maaragtay cudurka la yirahdo dumping off oo hore uga soo sheekaynay markaan barbarooniga ka hadlaynoo kale inuu ku dhaco, koritaankoodii inuu liito, xididkii inuusan si fiican u bixin. marka dhibaato badan ayay keeni kartaa biyaha haddaad ka badiso. haddaad biyihii aada ku shuban oo ka yaraysana dhibaato ayay keeni kartaa. marka greenhouse haddaa isticmaali sidoo kale camal inta badan geedaha ama caagadaha geeska xiga ayaa si dhaqsaa u qalala. marka kuwaas badana biyaha u badi, kuwa dhexda ayaa biyaha xoogaa haysta, kuwa geesaha qoraxda si toos ay u hayso kuwaas ayaa biyo badan u baahan badana. waxaana fiican intooda badan in la maaragtay biyaha la siiyo subaxa hore sida hore ayaa fiican in la waraabiyo oo aan duhurkii la waraabin ama galabkii oo maaragtay ay ku dhacdo maaragtay ileen caleentii habeenkii iyadoo qoyan waa laga fiican yahay. pH-kuna dabcan waa muhiim in pH ku habboon uu yahay. haddii dabcan kaba soo qaadba banaanka aad isticmaalaysid oo ciid maaragtay banaanka aad isticmaalaysid ama waxa aad soo iibsanaysid oo aad rabtid inaad caagadaha geliso ay pH-kooda uu sareeyo ilaa 7 ugu badnaan ayaa fiican. marka pH-ka aad ayay muhiim tahay inaad ka taxadartid. midda kale haddii biyaha isticmaalaysa ay aad cusbada ugu badan tahay ayadana dhibaatadeeda ayay leedahay oo abuurka yarkaa dhibaato weyn ayay u keeni kartaa, ciiddiina way ku badi kartaa. marka haddii aa awoodid biyaha cusbada ku badan tahay iska ilaali ha isticmaalin. dabcan nafaqadana waa muhiim oo transplantska inay nafaqo helaan aad ay u fiican tahay, laakiin waxaa isticmaalaysid ay ku xiran tahay. haddii aad isticmaalaysid midkan oo soilska oon ciidda aan ahayn oo kuwii aan kasoo hadlayno oo kale camal ah hadday yihiin qaar badan waxay wataan nafaqo, laakiin haddaysan nafaqo wadan adiga laftigaaga nafaqo yar inta burburiso waa ku qasi kartaa intii aadan silika gelin. laakiin waa inay wax yar oo aan badnayn inay tahay, maadaama nafaqada hadday ka badato ay seedkii iyo abuurkii yarkaa soo baxayay ay dhibaato u keeni karto. kabacdi markii ay soo baxaan 2 ilaa 3 usbuuc kabacdi markay soo baxaan ama waxa first true leaves la yiraahdo oo basasha kale markii uu soo baxo markaas ayaa waxaa lagu bilaabaa marka inaad nafaqada kale aad siiso. waxyaabaha kaloo aad samayn karto oo laga rabo waxaa ka mid ah inaad isticmaashid waxa la yiraahdo farmyard manure ama maaragtay digada xoolaha kale camal oo maaragtay decomposition lagu sameeyay oo la baabi'iyay oo composting lagu soo sameeyay in aad ku shubto oo aad ku qasto ciidii nursery-ga aad ayay u fiican tahay. haddii aad weliba banaanka ku abuuraysid inaad ku qastid aad ayay muhiim u tahay. oo haddii aad awoodid intaasoo kiilo adiga 20 kiilo 30 kiilo halkii mitro square haddii aad awoodid inaad ku shubtid waa ku shubi kartaa. dabcan Soomaaliya ka warqabnaa aad sahal ugama ahan arrinkaas, laakiin haddii aad awoodid waa samayn kartaa. waxaa kaloo muhiim oo iyadana laga rabaa inaad DAP oo kale camal inaad ku dartid adiga 20 gram oo kale camal halkii mitro square aad ayay muhiim u tahay. DAP hore ayaan uga soo hadalnay waxa ay tahay. marka tusaale ahaan qol inta la ego kale camal 4 lagu dhufto 4 oo kale haddii aad rabtid inaad DAP ku shubtid waxaad isticmaali kartaa nus kiilo oo kale camal ayaa isticmaali kartaa. dabcan marka taasna waxaa muhiim ah inaad kusii darto haddii aad awoodid farmyard manurekaas inaad ku darto kale iyaduna aad ayay muhiim u tahay u fiican tahay. taas waa inta aadan marka aadan abuurkii seedskii intaada ku abuuray nursery-ga inaad taas sii diyaariso aad ayay muhiim u tahay. marka seedlingskii markay soo baxaan waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo marka top dressing in lagu sameeyo waxa la yiraahdo oo nafaqo aad kor uga shubto. weliba markii hore maadaama aad phosphorus ku soo shubtay haddeer oo kale waxaa la rabaa inaad marka aad ku shubtid nitrogen inaad ku shubtid ammonium nitrate oo kale camal inaad ku shubtid 2 usbuuc 3 usbuuc kadib markii aad abuurto haddii aad rabtid wax soo saar fiican inay ka soo baxdo meeshii. marka tusaale ahaan meesha haddii ay tahay 4 lagu dhuftay 6 kiilo oo kale oo ammonium nitrate oo kale ayaa ku shubi kartaa oo meeshii qol caadi oo kale ah intaas ayaa ku shubi kartaa adoo dabcan iska ilaalinaysa inaad ka badin. taas marka waxaa kuu sii dheer oo kale aad samayn kartaa inaad biyaha aad dusha uga shubaysid oo kale haddii biyaha weliba dusha uga shubtid oo kale camal oo midka greenhouse oo kale aad isticmaalaysa caagadahaas aad ku abuuraysid inaad nitrogen dusha uga shubto iyo mararka qaar isagoo isku dheelitiran oo nitrogen iyo phosphorus
iyo potassium oo isku qasan oo biyo laga dhigay inaad dusha aad uga shubtid ayaa samayn kartaa. laakiin dabcan waa inaad aad u qafiifisaa. haddii aadan qafiifin caleentii oo dhan ayuu gubayaa, dalagii saas ayuu ku laynayaa. weliba taas waxay ku xiran tahay inta jeero aad rabtid inaad ku shubtid. usbuucii hal mar haddaad ku shubid sidoo kale xogaa yar ayaa badinaysaa, laakiin haddaad rabtid usbuucii 2 jeer oo kale camal inaad ku shubtid waa sii qafiifinaysaa, concentrationkii ayaa aad usii yaraynaysaa. marka taasna waa la sameeyaa. marka maamulood kale oo la isticmaalo iyo nidaamyo kale oo la isticmaalo ayaa jira. nidaamyadaas waxaa ka mid a waxa la yidhahdo trimming in lagu sameeyo, oo ah in basashii markii ay baxayso aad dusha aad ka jartid. dusha inaad ka jartid si aysan u noqon mid isku laalaaban oo isku duuduuban ayada dhan, isaysan u noqon waa inaad jartaa, dusha aad ka jartaa. weliba markii aad ku abuuraysid sidoo kale greenhouse-yadoo kale oo nafaqo fiican aad siisid waa inaad ka jartaa dusha. dabcan waa cuni kartaa haddii aadan sun iyo waxba aadan ku shubin, waa cuni kartaa basashaas aad dusha ka jartay oo wax halaysan ma ahan. laakiin taas waxay keenaysaa markii aad dusha ka jartid in geedkii uu koro oo ruudkiisi ama xididkiisii uu energy fiican siiyo oo uu koro, oo hadhow markii aad talaali rabtid ay kuu soo baxdo basal aad u waaweyn. marka aad ayaa loo isticmaalaa kaartadan. dabcan waxaa iska ilaalinaysaa inaad marka hore u ogolaatid inay xoogaa fiican ay soo baxdo si geedkii kabacdi uu u awoodo inuu dib uga soo noolaado oo xoog u koro. sida cawskoo kale loo jaro kale camal ayaa loo jaraa. taas marka cawska markii la jaro kale waxay keenaysaa inuu xoog usii baxo saasoo kale. marka basasha aad ayaa loo isticmaalaa. ilaa ma rabtid wixii inta isku soo baxeen iyadoo dhuudhuuban oo aad u dhaadheer oo isku laalaaban, hadhow qaab u maamusho iyo qaab aad u abuurto ma helaysid. marka sidaas darteed waa la jaraa, dusha ayaa laga jaraa. maqas yaroo nadiifa ayaa la qaataa, waa saas ayaa lagu jaraa. marka sida aan sheegnayna banaanka dabcan waa lagu abuuri karaa oo iyada laftigeeda jaritaankii habaysnaa waa loo isticmaali karaa. banaankana waa lagu abuuri karaa, hadhowna inta laga bixiyo ayaa waxaa lagu talaali karaa beertii weyneed. oo sidaas ayaa badanaaba Soomaaliya hadda laga isticmaalaa. iyo meelo badan adduunyada aad ayaa looga isticmaalaa noocaas oo aan rabin qalabkaas iyo qarashkaas zaa'idka oo greenhouse-ka inay isgeliyaan. marka inta aad la ekeysiinaysid nursery-ga dabcan dhulkaagana way ku xiran tahay, spaceyada iyo inta isku ishiirsiinaysid geedaha kala duwanna way ku xiran tahay. oo geedaha ma isku dhaweynaysaa mise waa kala fogeynaysaa, qaabkaas ayay ku xiran tahay inta aad rabtid inaad mar soo saartid. laakiin markii aad rabtid sida aan sheegno kale haddii broadcasting ama waxa la yiraahdo ama si toos ah rabtid inaad beerta ugu abuurto basashii, waxaa loo baahdaa 20 ilaa 25 kiilo halkii hektar ayaa loo baahdaa. maxaa yeelay si badan ayaa khasaaraya. laakiin nursery markii la rabo in lagu abuuro 4 ilaa 8 kiilo ayaa ku filan markaas halkii hektar oo basal ah ayaa ku filan. taasna dabcan sida aan niri waxay ku xiran tahay inta aad rabtid inaad isku jirsiisid basashaas. ma nus mitir ayaa rabtaa safkiiba inaad isku jirsiisid mise 10 centimeter. marka taas ayay kugu xiran tahay adiga qaabka u maamuli kartid iyo nafaqada. marka dabcan sidii aan sheegnayna oo markii aan ka hadlaynay caagadaha lagu abuuro kale, markii nursery-ga banaan ku abuurto sidaas oo kale maaragtay caws halaabay maryo waxa rabta ayaa saari kartaa si ay biyihii aysan ugu ogolaan. waxa la yiraahdo mulch ayaa dul saari kartaa sida aan soo sheegnaba. oo markii aad caagadaha isticmaalaysid sidoo kale taas marka waxay kuu sahlaysaa in maaragtay geedkii ama mirihii ay si dhaqso ay u soo baxaan oo biyihii aysan si toos ah evaporation-koodii ay yaraadaan. evaporation-kii biyaha ee ka baxayay ciidda ayaa yaraanaya markaas. marka dabcan hadhow markii uu soo baxo si dhaqso ayaad uga qaadaysaa marka si toos ugu koraan oo kuma daahinaysid. marka nursery-ga waxaa laga yaabaa markii caagadahaas lagu korinayo inuu wax yar uu ka dambeeyo oo 7 beri ilaa 10 beri uu noqdo. isagana sidoo kale dabcan maamulkii xagga kale ayaa laga rabaa oo maaragtay inaad si toos ah aad biyaha ugu waraabisid. oo markii oo maaragtay seedkii ama abuurkii uu soo baxana aad mulch-ga aad saartay aad ka wareejisid. inta badanna waxaa loo sameeyaa waxa la yiraahdo raised bed ayaa loo sameeyaa oo kor ayaa loo qaadaa. dabcan waxa kaloo laga rabaa inaad si fiican u maamushana waa weedskii iyo cuduradii in ayagana aad la dagaalanto. laakiin dabcan sida sawirada aad ka aragtid qaabab kala duwan ayaa nursery bed-ka loo diyaariyaa. wixii aad isticmaalaysid ayayna ku xiran tahay. haddii dabcan aad kor ka waraabinaysid oo aad overhead irrigation aad isticmaalaysid, uma baahnid marka inaad line-kaas kala sarreeya aad u samayso, bedska kor kala sarreeya aad u samayso uma baahnid. marka taas waxay ku xiran tahay faarow inaad samaysanaysid iyo inaad si siman aad u dhigaysid. waxay ku xiran tahay qaabka aad rabtid inaad biyaha u siiso. laakiin dabcan haddii aad ka baqaysid in maaragtay daad iyo biyo badan ay meesha yimaadaan, abuurkiina aad rabtid inay biyuhu si dhaqso uga baxaan, meesha koraysa ayaa loo dhisaa oo tuurka ayaa loo wada dhisaa si ay biyihii ay hoos uga aadaan uga baxaan. marka kaartooyinka la isticmaalo si aad ula dagaalami lahayd weedska waxaa ka mid ah
inta dhowr maalin ka hor inta aadan abuurin abuurkii seedski intaadan abuurin inaad meeshii fasho biyana aad ku shubto kabacdi hadhow markii weedski o dhan ay soo wada baxaan aad baabi'iso kabacdina aad mirahaaga abuurto marka taas waxay kuu keenaysaa kuwii banaanka jooga oo dhammaa ayaad si dhaqsaa ku baabi'isay abuurkaagii ayaa markaas kasoo horbaxaya basashaadii ayaa kasoo horbaxaysa kuwii uul xagga ku jiray ciidda kore ku jiray marka kaartooyinkaasoo kale ayaa la isticmaalaa dabcan shaqada intaas kuma dhammaanay hadhowna waa soo baxayaan kuwa kale oo dadaalkii waa inaad sidaa ku wadaa marka shaqada oo weedka lagu kontroolayo shaqo sahal ku dhammaanaysa ma ahan waa shaqo maaragtay markasta taagan dhibaato weynna waxay u keenaysaa marka wax soo saarkii ayay saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa oo dabcan sidaan ognahay booskii iyo nafaqadii iyo biyihii wax walba ayay kula dagaalamaysaa basashaadii marka insha allah videoga soo socda ayaan marka waxaan uga hadlaynaa qaabka loo maamulayo markii transplantiga ay soo baxaan qaabkii loo maamuli lahaa oo loogu abuuri lahaa banaanka waxyaabo kala duwan oo fara badan iyo nidaamyo kala duwan ayaa la isticmaalaa adduunyada marka haddii la rabo in maaragtay basal fiican oo wax soo saar fiican leh qaybtaas wey qaybta aan rabnaa aadka inaan u maamulno waa qaybtaas oo transplantska maxaa yeelay dhibaatada ugu badan dadka waxay ka haysataa abuurka yararkaasi usoo saari lahaayeen hadhow markii ay soo saaraanna ay beerta ugu talaali lahaayeen marka dad badan uma sahlana 20 hektar inay si dhaqsaa ay ku abuuraan marka insha allah videoga soo socda taas ayaan uga hadlaynaa marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen videogan intaan video kala kulmi doono salaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan